koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warwar ma haysaane geerin naxdin leh baa dhacday guddoomiyihii gobolka banaadir oo qaraxii cadowgu soo abaabulay ku dhaawacmay maantuu ku geeriyooday oo ajashiisii ku gashay dalka qatar dumarkuu ka tegayo daymada carruurta dalka iyo dadkaba samiir allahayuu ka deeqsi allow dalka iyo dadkaba samir ka sii injineer yariisow horaa loo yidhi bashar waliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqan maayee allow buddiisa u nuuri injineer yariisow allaha u naxariistay anigu waxaan dhihi lahay niman yahow dad waa dhiman jireen dhaar iyo habeene naftu waxay dhacaysaa markii eebbahay dhaho noloshuna dhexmay ku egtahoo geeri loo dhalaye dharbaaxada casraa'iil ma jira nimuu la dhaafaaye dhakafaarsa weeyaan dulmigan dhiigga lagu daadsho war haddaan laga dhiidhin dadka dhiigga bannaystay kooxba maalin baa sidaa loo qalanaya war dadkaanu hadday damiir leeyihiin wixii dhiig lahow kaca imisaan dhahayne dadkaan dhiiggooda kicinoo dhiifaha isgelin dad bannaystayaa dhiigga ka daadinaya dalka iyo dadkaba samiir allahayow ka deeqsi war maanta warku aad u wenya war madaxweynaha Soomaaliya warka ma ka wenyahay waranamay baa hilmooday madaxweynaha antiha baraarugu haareha fadheeday hees bilaawi ikaalay jubbaland ikaalay Puntland ikaalay koonfur galbeed iyo galmudug hirshabeelle ikaalay koonfur galbeed iyo galmudug hirshabeelle ikaalay war sayid ahmed mudooyo ka daba heesay oo dhagan soyniyow waanu ka diidnay waanu ka diidnay koonfur galbeed iyo hirshabeel eegaha ku raacaane war madaxweynuhu ma heesine waa gabyeen naga dhegaysta in lay doortay oon dalka maamulaha dembi laga dhigo duqow iyo ergaa gobol iyo degmiyo dowr laga wacaye ma ka daafacaa dugaagaa wacaye ma iska daawada horta nimayow anigu heesahani inay been abuur yihiin waxaan ku ogaaday madaxweynaha miyaa wuxuusu u tirsanayn hirshabeelle iyo koonfur galbeed waaba haystaa ii kale siduu u dhahay war maanta waxaad ka hadlaysiin warka weyn baa yaalla madaxweynuhuna wuxuu noqday maanta muwaadin rasmiya oo dalaaliya cashuur ka bannaan baasaboorkii maraykankana waa uu kansalo uu ka tanaasulay waxaana uu sheegay maadaama uu madaxweynaha Soomaaliya yahay inuusan jinsiyad kale u baahnayn war waxaa la yidhi weel gawrac diba ha ku quustee horaana waxaa loo yidhi ninkii laba dal yeeshaa midkood waa dayacaya aad baan u soo dhowaynaynaa madaxweynuhu inuu docis la maray oo Soomaali dhabahoo dalaaliya canshuur ka bannaan oo ciduna shirka kula ahayn Soomaalida noqday war baasaboorka amuu madaxweynaha Donald Trump ku qabsaday walahi dabdarrida madaxweynaha ma ilhaan Umar baad moodo markuu qabqabsanayo Donald Trump war waad fududaanaysaane baasaboorka marinka rajactu leeyahay war rajactu marka la dhahay hal dalaqa lagu furay miya war dadka qaar waxay leeyihiin madaxweynaha baasaboorka Qatar diyaar u ah sidaasuna u kansaray ka Mareykanka war nin Mareykan dida Qatar ma rabe beenta iska dhaaf muwaalanta war suurtagal ma aha baasaboorka Qatar inoo Sacuudiga ku humaayo maandeeyo anis weydiine madaxweynaha teesara kono Xubinta ma leeyahay eeda Talyaanigu teesara minishiibiya ma bixiyo warnimayo Mareykan dii laga tanasulay Norway sidee la yeelayaa war baasaboorka Norway rajactu malaha asagu midka Ingiriiska hadda u qaataana oboyaan barnikaagaas badhalan way waraagaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed isaga wuxuu wataa baasaboor Usbekistan ma ka tanasulay yaa allo waxaan maqli jiray lugtaana ninba marku qaad marka Usbekistan ma maamuli jireen marka Cabdinuur asagoo Usbekistan haysta miyuuna leeyahay madaxweynuhu waa ka tanasulay baasaboorka Mareykanka oo isagana ma ka taqaluso hoylam godli waa iska waramaysiin leedin qayaano noosinatiin baasaboordan oo joogaysiin ama ka hoosin oo jab gadaal aad gashateen usoo la jajaha ma la arkiyaa war madaxweyne xaaf baasaboorkii galmudug jaabku gashti horta nimayow arrinta maanta madaxweynuhu sameeyey waa tilaabo ku dayasho mudan waxaan qabaa in dastuurka lagu daro nin baasaboor shisheeye sitaa dalka madax kama noqon karo nin naag shisheeyaa qabaana kama noqon karo sidii dastuurkii 60kiiba noogu
qorayd si aan uga nabad galno qurba joogtaan xiirxiiranoo qabaarmoogga ah oo dalkiiba qarribay war aniga hadalkaaga waa fahmay khudbaddii axmed madoobaad akhrinaysaa iyo qodobadii uu soo qoray muraadkaagoo dhanna oomaraadu dan leedahay inuusan madaxweynaha jubbaland noqon marka warkaaga caddaysa qurba joogaa ku meeraysane warnimayo war ma haysiine maanta buntland ay ka shidan tahay waadna ka mashquusheen war ma daniyaa baasaboorkii jeexjeexay dani imaaraad miyaa baasaboorkiisa bowe maanta waa sanad guuradii 21aad ee Puntland ku dayo Puntland ku dayo 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 wararka Puntland waxaan ku xasuustaa baraamburkii ahaa ma jidho iyo way jidha way isku qaban jidheen bowe buntland ma taqaaniine waxa weeye sheekadu bashbash baanu joognaa iyo bariis caana leh war sanad guuridii galmudug goormee waay yaa aroo sanad guuri intay ka keenaysaa galmudugna waaba aradanta labisa ay u baahan tahay baatigeeda waa dhammaadee warnimayo war ma haysiine maanta dhuusamareeb jidadkii waa la xiray kala wareeg maa ka bilaabatay war shirkii maa furmay war guddoomiyaha guddiga dib-u-heshiisiinta galmudug baadiyow wuxuu yidhi dadka ugu yeeri mayno gogosha dhuusamareeb ilaa maamulka dowladda dhexe la wareegto sababtoo ah kooxaha ka talisa dadku ay eedaynayaan war baadiyow may kooxanka meermeeraysada meele lama qofood la ibka taliyoyta hasan iyo huseen taliyoyan meero war baadiyow bac ka sii in meesha laga miyuu rabaa war waxaad ka hadlaysaa maaha meel kale nala aadeene maanta dhuusamareeb waxaa waddooyinka loo xiray ra-iisul wasaare khayre doctor shaakir oo aroos ka qayb gelayay war macalin mahmuud aroos haayay war ma haysaane maxkamadda ciidamada maanta waxay dil toogashaa ku xukuntay nin daacishow dadka bastoolad ku lay jiray hadda shuutaas suuratulmaa'ida u cuskaday qararraf toogashaha looga siyuuna yidhi war shalay nin ajnabiyaha maxkamadda gobolka banaadir la keenay baa la yidhi hubna waa lagu qabtaye kaas maxaa maxkamadda ciidamada loo keeni waayo suuratulmaa'ida loogu aqrin waayo war ajnabigii kale ka horreeyeyba meel uu ku dambeeyey lama arag xabsiga dhexe waa lagu dhaawacay iyadoo la leeyahay baa uu dad ugu war dambaysay war amaa markab la saaray warkiinna waan fahmay ajnabi muqdisho joogaya xasaanad buu leeyahay maxkamadda ciidamadana lama geeyo shuutana suuratulmaa'ida ku aqrin maayo warnimayow qawda maqashii waxba ha u qaban wayna qaribtee war hees ma taqaanina aniga heesiga dhegaysta qorya laysku qaatiyo qabiil ma fiicne qorta layska gooyiyo qaraxyaanu fulina qaranimaana diidnay qabiil waa qasaaro qurba joog ma fiicne war yaa qawiil war maahana nagalata war ma haysiina nabadoonkii xalak ismaaciil lagu dilay axmed madoobaa ka dambeeyaa la yidhi askari ciidamadiisa ka tirsan ayaa dilaana la yidhi daar amiin jesowna wuxuu yidhi halka nabadoon axmed madoobe ka soo horjeeda ayuu ahaa war axmed madoobe nabadoon ka soo horjeeda marka hore kismaaciil mamuudkiisaa geeyey iyada kaali axmed madoobe qofkii ka soo horjeedaba qoorta maas u dheeraynaane war horta nimayow kaalaya daahir amiin jesow madaxweynaha jubbalandna ma noqdo axmed madoobena ma daaya maxaa dhacay marka hore maxay uga soo horjeedsanayaan maa ka sii jeestaan war dadka unbaa dhistee cirka dawladnima kama soo da'dee golayaashii degaanka dadow maa dhisataan niyow maalin walba golayaashan degaanka adniile daba roogda dantikiinka jarta may hayti war golayaasha degaanka dadku haddaysan dhisin yaa maamulaya diktatoriya maamulaya maamulkan waxaan rabnaa in dusha loogu soo rido war maamulka degaanka dadku kama maarmo mid dusha looga keenana waxba u qaban maayo war waxa dusha looga soo dhacay maamul deegaan ma ahayn waa saldhigii al-shabaab ee arbacow xali 6 saacana lagu soo degey haw dimtoodaana yertay war ma ruuxaana ku soo degtay war hadda koor ciidan arbacow weeraray waa tiyaamisom jidka u gashay kuwaanu ma ka nabad galeen oo ciida kaale arbacoogaan la sheegayna goormaa garoon diyaarad laga furayne war dadkii amarka shabaab qaatay markay ka soo laabteen buula bardo waa lagu xirxiraalid war meel kasta saas ha loogu xiro adigana maa lagu xiraad adiga warkooda sheegay amarka waad qaadatay war dadkaan shabaab ka soo laabtay shuutaa loo keen hal maraa ku aqriya maydo arooshinaga dhaca shabaab laba ma ah shinaha idin dhammayse war shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan iyaad u sheegaysaa war naga taga tawfiiqda allah idin haleeshiye